dadkeena waa dayac dadkeena shacabka reer Soomaaliland ma garanayo cid ka wakiila waxa weeye dawladdu ay shacbigeeda ilaalisaa halkay dhibaato ka jirta ilaalisaa waa dadkeena maanta isbitaal hanan kara dadkeena ma jiro dadkeena waxay u baahdaan baasabooro haddana waxay intii heli karaysa haddana waxay u baahdaan dadka buka haddana waxay u baahdaan magaranaysaa inay safraan dadkii lacagta haysa waxay tagaan India iyo dadkii masaakiinta waxay tagaan magaranaysaa Ethiopia dadkeena waa lagu dhibaa waa lagu hiyuumilad gareeyaa dumarkeena u badan yihiin dad buka wada waan kala hadlaynaa safiirka Ethiopia laakiin wali abuse ku socdaa waxa weeye dawladda Ethiopia ayaa xuduudda ka mas'uula federal government-ka markaad ka tarawdid tago jaale waxa baasaboorka ay dokumentka ay dawladda federaalka halkaas ay arrintu ku dhamaataa adduunka dee laakiin waxa weeye iskala ka shanaad askar yar yar oo la isku dhaxaynay booliisiya oo isku wada reera oo isku jira magaranaysaa checkpointoodu isku jira maxaa oran kara 5 kilomitir ay dadkeena dhiba oo reer qura ka tirsan oo alaabta ka daadiya hiyuumilad gareeya oo waxa say u galaan hadda aragtaan iga wadaan yahuud u galin Falastiiniinta checkpointkooda arrintaas waxaan doonayaa dawladda inay gacan ku qabato arrimaha waxaan u fiicnaa dawladda inay gacan ku dhigto dadkeeda ilaaliso wasaaradda khaarijiga ilaaliso daakhiligu ilaaliso protest la sameeyo arrinta aad iyo aad baan jeclay dawladda federal government-ka in lagala hadlaa Soomaaliya waa la wada dagaa anaga dadkeena waa aragtay Ethiopia way ka yimaadaan khamriga ka yimaada qaadka ka yimaada qotrada ka timaada qurun dhanba ka yimaada كم عفرة باللي سوداء هذا ده نقطة إن قفك أسن كيس لا يرضى الصومال وكلا أكسنت ولا كلامه دايلك يعني أقول هو ريتاليشن ولا سمعته تذكر سوى ولا ده الصومال ده ما كان حيس عشان الصومال بكوجرت غير أن كوجرت الصومال عشان تمشي إلا كأفمد الدجاج إلا كأشعة الدجاج ويكوجرت الصومال عشان ومش أقول عشان الصومال لقيه إن أمريكا غير قول كو أبتمر وكو تنتو ودفك كلا كو أبيوس كريو واحد أوجانا كريمة دولة تو إحنا شيءنا إن أرنت حاسي أكيد عين كرتو إن قبائل كريستيلان يعني قبيلة ما حكومة كرو نو غير حكومة كرو الدولة دي شعر وقاشة تيم محمد سياد بري أي الله أركن غير أنت تياراديس ذلك أودي كبربرين كعبريين وحي كرعاية وجو أبيدين على مدحوينها كلك الشناط روان وقت لابد كويس لحتهم كوان لكل مي وحيري وإن الصومالي سكوتا شنت الصومالي وسكوتا لوك الصومالي سونها الشناط وحلقوا إلى علن كرام بدنا الصوماليين وردوا البلارن دول خير قبوي لكن قبيل دوش كفولو أنا وقلان مين أنا كحنا هاي شعدات كماتيدا alaabtoo laga daadinayo haweenka u badan la caayo la humid gareenayo u dul qaadan ma anagu inta Ethiopia ka imaanaysa waan siyaasad ka sameeyay doona xadkaan ka xiri doona waxba ka soo gali maayo qudrad ka soo gali mayso awoodeen tusto dilaayna waxaad ogaataan in aan socdaal u baxay aan ka baxay gobolada galbeedka oon ku tagay Selel waxaan ku arkay waxaana wali lagu arag caalamka oo ka dhicin baan ku soo arkay Selel gobolka Selel waxaana xukuumaddu dhowr jeer hore waa lagala hadlay waxaan soo arkay ilaahay baan inagu dhaariyay beeshan aan dawladda wada leenahay sheegaya isaaq iyo gadabuursaan u gudboonahay ilaahay baan inagu dhaariyay aslan baad sheegteen aslan baan nahay baad tiraahdaa mujaahidiin war miyay inagu dhacday waxaad ku noqoteen mujaahidka ku sheeganaysin ilaa waxba dilnay waxba dhacday weeyaan in adeere miyay in heshay dadkii noo xeray tiyo lagu odan la yiraahdo $35 kan islaanta lamaana ilmihiisata warkan ma socday tiro indhayga ku arkayanu kan uma socday anigu uniga qaad bay tiri hadaanad bixinaynin hadaanad isakana $35 ka bixinayn aad sido adna $35 bixinayn naqo ku yiri
waanu taagnaa anugu halkeed tagaysaaba horta qofka odhanayaa halkeed tagaysaaba horta qofka la weydiinayaa halkaan ini jilciyo waxaan tegayaa boorama hadday tidhaahdaba waa 35 waxaan tegayaa saylax hadday tidhaahdo oon ku eegahay waa 35 hargeysaan tegayaa hadday tidhaahdo jaadka noo qaad baa la leeyahay burcaan ku socdaa waa kadaalika barbaraan ku socdaa waa kadaalika ilaah baan inagu dhaariyey gabiilayoo xataa wala degannahay baa waar waxaan u galay qiimayn weyn baan ku sameeyey been kama sheegayo dawladdana aqal baan ahay dadkana aqal baan ahay uma dul qaadanayno waxa aan soo arkay ina taalkii bay ooyiday anaa gacantayda ku soo qabtay magafa ninka la odhanayay ee reer saylax ka hadlayeen dee 10 magafu soo kaxaystay oo habar jeceelaa u badan uma dul qaadanayne bal xukuumaddu ilaah baa inigu dhaariyee isaaq waa simanahay waar waxaana ku helin oonad ka bixin baan aniga maanta ay haysta dawladnimadii cadaaladnaad ku sheeganaysaa ilaahay dhulka cadaalad buu ku taagay cadaaladii haddaan waayey sawna raasada maaha waa ina raasadee balse waxaad ii sheegtaan saaka gobollada galbeedka waxaad farmaajo kaga xigtaan bal ii sheegay ilaah baa nagu dhaariyey balse cadaaladda aad farmaajo kaga xigtaani maxay tahay waxaasaa haysta dadkee